insha allah koroskeeni bay sii wadanaa markaa qaybtii game projectskeenu wadnaa marka gamekaa ku xigaa wuxuu noqonayaa memory gamekan okay memory gamekan oo se loo isticmaalayaa memory gamekan waxaan haysanaa bogosyada yarar baynu clicta ku daranaa kadibna xuruuf baa ku dhex jirta waxaan doonayaa xuruufta inaan ku display gareeyo kadibna ku match gareeyo mid kale eeg haddaan saa u ciyaaro iminka d waa ku match garaysantahay xaraf kale waa inaan ku match gareeyaa eeg iminka iyo baan helay waa isku match garaynaynaa okay saasoo kale baa garoon kale inaan ugu darsanaan rabaa oo markaa inaan ciyaaraan rabaa xuruuftan waxaan oo dhan aan isku daro kadibna aan isku match gareeyo sidaas darteed baynu u samaynaynaa maxaa la yidhaha gamekan eedi aaway eedi haddana eriyanayay hadda okay eedi iyo eeda waatan saasoo kale isku match garaynaysaa marka gamekaasaan doonaya inay samayno waa memory game waxaa loo yaqaanaa memory game oo kale macnaheedu waxaad doonaysaa inaad isku match garayso xuruuftan yaa xarafba xarafku la midka yahay okay marka insha allah projectkan aynu dhisanaa waa aad buu complicated u yahay marka koowaad waxaa laga yaabaa inaad fahmin markaad qorayso waa tricky marka insha allah laakiinse markaad ku celceliso practice-ka ood adigu eegto mar walba waxaa laga yaabaa inaad fahanto okay so laazim waa sidaa khayr ba iska ognahay bal waxaan gudagelanaa projectkan iyo sida gamekan loo dhisi karo